amaradii computerka markuu xifdi kadib chipkii baa lagu shubay hadda asoo iska fadhiyo kaligiisa ayuu gameka ciyaaraya waliba midkii kala duwanaa aan naqaano labada gees ahaa ayuu ciyaaraya hirgeliyeen in chipkii ugu horreeyay qof bini aadam ay ku rakibaan kaasoo bukaan wax kasta ka filo Elon Musk teamkiisa ama shirkada caynkan oo kale ah waxaana filan kartaa in bari ka maalin la oran karo qofkaas maskaxdiisa loo siiyay adiga kuma fiicnid darbi kaboodka kuma fiicnid falcelinta degdega in lagu dhaho package ayaa laga gadayaa package kaas oo maskaxda bisa lagu dhajinayaa hatta laga yaabo mustaqbalka la gaaro in lagu dhajin lagu daloolina kor laga saaro kaasoo wax walba fududeynaya laakiin waxay sameeyeen arooskeedii hadal ay dhiibtay oo bixisay hadda ku hor si public loo duubay intay soo qaateen ay mishiin ku tababareen You are truly wonderful people. Assalamu alaykum qof intaad madaxiisa fiirisid waxa maskaxdiisa ka dhex guuxaya ma qiyaasi kartaa ama mashii kartaa iyo kulata ya tusaale idinka ahaantiina ninkan wuxuu ka fakarayaa inay dhib haysto oo xanuun hayo waa iska cadda dabcan soma jirkiisa dhididsan wajigiisa xarxariiqaha ka muuqda fiirinta daran iyo muuqaalka ishiisa soo ag tahay in dhib haysto waa ka qiyaasi karnaa saas ayaan ku ogaan karnaa malaha inuu xanuun hayo ama dhibaato haysto okay laakiin fikradaha maskaxdiisa ka guuxaya iyo wuxuu damacsan inuu sameeyo iyo afkaarta mucaqadka madaxiisa dhex maraysa ayaan sheegi karnaa tusaale ahaan oo kale haddaan labadeena suul aan kaga qabanno sujuudda ka saarno oo maskaxdiisa ku dhex safarno waxa ka dhex guuxaya meel iman karnaa hal mar meel soo dhibi karaan waxaad idhi doontaan saaxib caadi iska dhig waxaad nooga sheekeynaysaa ama sheegaysaa suul madax qof la saar madaxiisa waa wax filmaanta mala awaalka ay science fiction ka dhaco kaliya miya khaldana waxay oran doontaan maskax akhrin iyo ur ku baalayn waa wax ka jira wali waxaan dhab ahayn weeyaan waxa wali si sax ah loo sameeyay oo caalamka dhabta wali hirgalay ma ahan adigu dhig doontaan talosaas miya ya jaclaan lahayn saat yaanan oran maskax akhrin laakiin signalska maskaxda ka imaanay in loo bedelo semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings in loo bedelo waa fududa waana xaqiiqo dhab ah oo tahay dhamaanteena aqbalno waxaan wax yar koor waxaan daldalay maxay jaalayaal kan ma ahan mala awaal iyo film waa daraasad dhab ah oo xaqiiqo ah la sameeyay waa system aan wax yar kadib idin sheegi doono kaasoo la hirgeliyay daraasadaas waliba systemka la sameeyay daraasad laga sameeyay lagu soo bandhigay jiridad kamid ah jiridadaha adduunka loogu ixtiraamka badan yahay laguna aqoonsiga badan yahay loo yaqaan Nature waliba isla sanadkii tagay bishii May sanad 2003 yani dhowr bil ka hor waxa aad u fogeyn weeyaan yani ilbaxnimada iyo aqoonta aadanuhu waxay soo gaartay in signalska iyo waxa ka socda maskaxda bini'aadamka dareemaheeda mawjadka dhex socda intii la akhriyo qoraal loo bedeli karo laga fahmi karo sheeke saddex cilmi baare oo ka kala socda jaamacadda Texas oo loo kala yaqaan Alex, Shirley iyo Cherry ayaa waxay soo saareen nidaam kaas oo ka ag dhow barnaamijyada hadda aan aqoonno sanadka la soo dhaafay ilaa hadda hawada naga haystay oo trendingska ahaa ee sida ChatGPT ay OpenAI soo saartay iyo Gemini oo Google soo saartay oo nidaam ah ay soo saareen nidaamkaas u bixiyeen semantic decoder yani kala falkiyaha af aqooneedka magacaas ay u bixiyeen Alex oo kamid ah cilmi baareyaasha aan soo xusnay jaamacadda Texas ayaa oranaya afkaaraha adag iyo hadallada adag in la fahmay adag tahay waxaan ku qaadanaa kaliya waqti dheer intaan ku qaadano ayaa waxa noo suurtagelaysa inaan u bedelno wax la fahmi karo wuxuu la jeedaa yani qof ay soo kaxaynayaan qofka markay soo kaxeeyaan waxay u daarayaan podcast ama muxaadaro ay dhageysanayaan qofkaas maadaama saacad iyo 2 saac uu hadal qaadanayo hadal dhageysanayo hadal kala duwan dhageysanayo qof hadlaya sida hadda idinku dhageysanaysaan oo kale qofkaas maskaxdiisa qayb kala duwan ayaa shaqeynaya markasta maskaxdiisu ay shaqeyso hadallo badan iyo fikrado badan buu qaadanaya computerku marka wuxuu baranayaa markuu eragaas maqlo maskaxdiisa meesha shaqeynaysa markuu oraahda caynkaas maqlo maskaxdiisa meesha shaqeynaysa salahan oo kale waxa la yiri marka la dhaho maskaxdiisa waxa la yiri ku sawirto waxa la yiri sibay u signalku u sawiranaysa sidaas ayuu ku baranayaa barnaamijkani semantic decoderka maskaxda aadanuhu ama qofka marka tijaabo lagu sameynayo erey kasta oo la dhaho signalka goonida ee maskaxdu sameynayso signaladii ayuu xifdinayaa hadda anagu luqadaha markaan baran luqada Soomaaliga ama Carabiga ama luqad kasta oo tahay waxaan luqada ereyga ku dhawaaqaysa yani xarafka afka ka soo baxaya xaraf marka hadda dhaho ama hadda markaan dhaho
balanbaalis aad u qurux badan oo meel kayna marayso idinka waxa idin sawiran balanbaalisa ku sawiran duulaysa meel wixii aan idin sheegayo sawir ahaan idin kugu muuqanaya maskaxdiina way taqaanaa sidaas oo waxay leeyihiin maskaxduna markay fakarayso hirar ayay samaysaa hirarkaas ayuu mashiinkan baranayaa erey kasta oo ku fakartid seed tahay markaa ku fakartid maxaad haysaa markaa ku fakartid barnaamijka caalamka markaa ku fakartid signal goonisan signaladaas ayuu xafdinayaa hadhowtan qofka asoo iska fadhiya markii lagu rakabo ama la dhageysiiyo wuxuu ka fakarayo dhag u soo daadanaya ka sheekee sidii la tahay dhabtiina waa xaqiiqo jirta oo maanta dunida taala taas oo si ay sheegay ay tahay dhamaanteen inaan wada aqbalno sanadan sida u sii fogeyn isla shirkadda Neuralink ayaa waxaan arkaynaa ayadoo khanziir intay meel istaajiyaan meel kala duwan ku rakibaya chip maskaxda kaga rakibaya chipkiisa qaybo kala duwan waliba khaasatan maskaxda kuwaas oo cabiraya dareenkiisa wax walba uu rabo aan ku arkaynay ayadoo sidoo kale u fogeyn waxaanu arkaynaa ayagoo sameeyay soo kale daanyeer intay soo kaxeeyeen oo u daareen game dabcan siinayaan markaas glucose ama wax macaan ay siinayaan taas oo abaal marinaysa markasto oo intuu choc stipka qabsado baash yarta qabsado oo gameka ku aadiyo uu soo baxaya mataqaanaa tuubada soo raacaysa wixii macaan uu rabay kullama uu saxo oo geeyo waxa uu maskaxdiisa waxa la siinayaa macaan ku rabay laakiin marka waa la khiyaamayaa u fiirso meeshan waa la khiyaamayaa waxa la leeyahay waxa laga fujinayaa meeshii baashu ka hagayo gacantu ka hagayo waa laga fujinayaa markaan maadaama wixii dhan la fahmo maskaxdiisa signal u shaqeynayso marka hor gacantu ku hayay markuu bidix u dhaqaaji dhoo bidixda maskaxdiisa amarka bixinaysa waa la fahansanaa amarradii computerka markuu xifdi kadib chipkii baa lagu shubay hadda asoo iska fadhiyo kaligiisa ayuu gameka ciyaaraya waliba midkii kala duwanaa aan naqaano labada gees ahaa ayuu ciyaaraya asagoo oonan meel taama shaashada bis hortaalo yani wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu gameka sidoo ciyaar laha ka fakaro hadduu bidix u dhaqaajinayo bidix hadduu midig u hoos u dejinayo hoos hadduu wax walba ay tahay maskaxdiisa ayuu ka fakarayaa amarkuna shaashada ayuu ka dhacaya yani aadanaha meesha rabo in la gaarsiiyo oo tijaabooyin hadda la wadaagi doona ay marayaanna waa halkaas oo kale barnaamijkan hadda idin sheegayo oo maskaxda bini'aadamka qof wax lagu xiray waxa loo yaqaanaa brain machine interface ama BMI baa loo soo gaabay yani isla falgalka maskaxda iyo mashiinka ayaa loo yaqaanaa asbuucii hadda tagay shirkaddan oo asaasay Elon Musk oo ah mulkiile reer Mareykan ah shirkado kala duwan oo caanan lagu yaqaano ayaa waxay ku guuleystay si soo tabiyay in ay hirgeliyeen in chipkii ugu horreeyay qof bini'aadam ay ku rakibaan kaasoo bukaan saasoo sheegeen in qofkii bukaanka hadda soo raysanay chipkan ayaa waxay leeyihiin maskaxda bini'aadamka marka lagu rakibo waxay wax ka bedeli karaan signalska maskaxda ayadoo macluumaadka soo qaadaysa in xogna soo gudbiso sidoo kale maskaxda sida u shaqeynaysay ficil ahaan iyo hadal ahaan iyo dhaqaaq ahaanba ay saameyn ku yeelato yani tusaale ahaan oo kale waxay oranayaan qof qalal ku dhacay oo muddo jiifay oo maskaxdiisa amarada bixinayso gacmaha meelaha dhaqaajinayso kale neerfihii dameen oo kale in neerfiyaasha intuu la jaan qaado mashiinkan ama chipkan ama BMI-gan lagu rakibay maskaxda in qofkaas dib u helo socodkiisii iyo hadalkiisii taasoo u suurtagelinaysa dad badan oo dhibaatooyin kala duwan haysatay inay u hirgasho inay mataana socdaan wax kasta ka filo Elon Musk iyo tiimkiisa ama shirkada caynkan oo kale ah waxaana filan kartaa in bari ka maalin la oran karo qofkaas maskaxdiisa loo siyaadiyo qofkan waa qof damiin ah wax fahmin ama qofkan waa qof aad u fakaraya ama maskaxdiisa dhinno ama siyaadino xitaa package noocaas oo kale ah kombiyuutar hadda aan gadano maskaxdooda iyo memorygooda waa siyaadinaa waxbaan ku darnaa lacag dheeraad gadanaa taleefanada aan waano kamid weeyaan waxa laga yaabaa in taas laftigoodu ay imaato in maskaxda bini'aadamka la yiraahdo adiga kuma fiicnid darbi kaboodka kuma fiicnid falcelinta degdega in lagu dhaho package ayaa laga gadayaa package kaas oo maskaxda bis lagu dhajinayaa xitaa laga yaabo mustaqbalka la gaaro in lagu dhajin lagu daloolina kor laga saaro kaasoo wax walba fududeynaya wax suurtagal ah way hadda bilowgeed ayaa la marayaa hadda ninkan idin muuqda waa nin 15 sano qalal ku dhacay aan hadli karin waxna oran karin jaamacadda California ee San Francisco ama University of California San Francisco UCSF loo soo gaabiyo ayaa waxay sameeyeen cilmi baaris iyo mashiin u diyaariyeen bukaankan sida idin muuqata maskaxdiisa ayaa mashiin lagu dhajinaya kaasoo kii aan hadda soo sheegay BMI-gi ayna hor dhigeen shaashad macluumaadka sax imaanayshadiisa qaybta kore waxa lagu qorayaa amarka ay weydiinayaan oo tusaale ahaan oo kale good morning kadib asaga uu fahmaya wax meesha ku qoran laakiin hadal ahaan ma soo celin karo ma uu hadli karo laakiin si ka fakari kara jawaabta waa fiicanahay hadduu oranayo iyo hadduu hellow dhahayo intaba maskaxdiisa way ka fakari kartaa mashiinka maskaxda uga rakiban ayaa hadalkiisa soo celinaya una bedelaya wax la fahmi karo
marmar buu isku dhaxyaacaya xitaa wax kale u bedelaya laakiin tartiib waxa markaa maskaxdiisu ay leedahay signal ahaan u soo saaraya barnaamijkaas arkaysaan 75% waa lagu guuleystay wax uu sheegayo wax sax ah weeyaan يعني أفرت أري أو شيء مد كم إذا خلدان صدق كم إذا وسخية هل كان نانك كانوا حاركين إسلا جامعة عدنا هذا اللي شيء أو سويني صدق شيء أيضا أسد يطبع السنة استروك يعني قلل باقي داعي هذا الكيبا كنت واحد من سمين كرتون لكن واحد سمين أراس كذي هذا الأيديبتي أو بحيث هذا كورة سبب لك الله دوبي أنت سوقاتين أي مشين كتاب برين. You are truly wonderful people. عد كذي برين أيضا sidoo kale mashiinka inay sheegay oo chipka ay ku rakibeen chipkii marka ku rakibeen ay waxoogaa levelka wasiir dalaceen shaashad bay sameeyeen avatar ama bombale u eg oo qof bini aadam u eg ayada oo kale sameeyeen waxa ay ku fakarto markaan qoraal kaliya maahan awal qoraalan maraynay qoraal kaliya maahane waxay ku dabaqeen xitaa avatarka ka soo hor muuqanaya oo koobiga ayada ah inuu xitaa macal codkeedii macal mimicskeedii iyo expressionkeeda jirka oo sidoo kale ku sameeyo oo taa ifdaata qoraal ahaan in lagu arko muuqaal ahaan loo arko cod ahaan loo maqlo waliba ayadu intaas kuma istaagsan waxay leedahay waxaan rabaa barnaamijkan in la horumariyo la sii dedejiyo heer loo bedeli karo heer aan kaliya bis qaadan karo ama shaashad yar ila socdo uu noqon karo taasoo bukaamada ila midka anigoo kale aan siin karo counseling ama la talin aan siin karo caafimaad yani bal ka waran qofka intaas oo kale yani qof stroke ku dhacay oo qalal ku dhacay tamaaman istaagay oo wax shaqeyn jirkiisu jirin oo hadli karin fahamsa ayaa rajada inta u soo laabatay waxay taagan tahay waxaan diyaar u ahay dad kale oo bukaanka ila midka ah inaan la tacaalo xaalkooda ay dhageysto oo ii arkaan in aan fahansiiyo in aytiinka iyo aadanaha meesha ku socdo nolol ahaan iyo caafimaad ahaan u fiican yahay jaale dunida halkaas ay u socotaa shirkadaha kala duwan iyo barnaamijyada waxay kala tartamayaan maskaxda bini aadamka wax laga bedelo ayadii horumar lagu sameeyo yani hadda waxaan gaarnay inaan tii qofka la qalo buro laga soo saari karo nerfiya la isku xiri karo dhiig isxire la furi karo iyo waxyaalo badan oo la mid ah laakiinse tanna waa level karo la gaaray implantiga maskaxda la gelinayo iyo akhrinta dareemada bini aadamkuna waa mid socota horumarkeeda marka ugu horeysay sanado ka hor ay soo bilaabatay filmaanta qaar hadda daawateen oo kale Back to the Future oo kale I'm going to read your thoughts. Let's see now. You come here from marka maskaxda loo geliyo baasha leerarka ama aflaanta science fiction ka ama malawaalka intaad ku aragtaan oo kale waxyaalo badan oo isaan is horey u soo xusi jirnay waxyaalo badan oo u muuqanay in ahaayeen malawaal iyo ku aadis ayaa waxaad moodaa hadda horteena si tartiib in u hirgelayaan haddaba jaalayaal mawduucan kale markaad aragtaan bal isweydiiya anaga ka shacab ahaan dunida halka ay marayso adiga shakhsi ahaanna waxa waajibkaas la horumarsan nafsadaada ina waxyaalo aan kale ka fikirtid yani bilaa subhanahu wa ta'ala nagu amray inaan ka fikirno waxa ugu sugnaaday dadka aqliga leh inay basiira iyo fikir iyo ka qaataan haddaba mar walba barnaamijkan ujeedada weyn waxa weeyaan aqoonta dunida ka jirta in la soo wadaago idinku aad ka fikirtaan sida xoga bedeli lahaydeen nafsadiina deegaankiina iyo aragtidin kaga aadan adduunka marka aragtid idin la mid ah oo nala mid oo dunida qaybaheeda kala duwan waxyaalo caqligu qaadan karno waaw aan dhahayno sameeyno markaan aragno anaguna waan isweydiinaa halkee baan ku aadanahay maxaase nagaga aadan adiga shakhsi u daawanaya hamiga aad leedahay haddii dad barnaamijyo noocan kale ku guuleysanayaan adigu waxyaalo yar yar oo aad isdhihi kartid ma samayn karaa mise lama samayn karo waxay u malaynayaan inaysan runtii adkeyn laakiin mar kastana wada jirka iyo wada wax lagu qabto marna meesha kama maqan ogaada dhammaan daraasooyinka idinla wadaagayay hal qof iyo laba qof ma samayn dad isku wada imaaday macallimiin iyo professor isku wada imaaday ayaa ku wada guuleystay hadda daraasad ugu dambayso gabadha idin sheegayay arday PhD ah oo jaamacadda wali dhiganaysa iyo macallinkooda ayaa sidoo kale horumariyay haddaba waxaan rajaynayaa jaamacadda dalkeena iyo kuwa deegaankuna heer ka gaaraan ilaahna tawfiiqna waafajiyo jaalal kharbi ma rajaynaya markale ka fikra wassalaamu calaykum